maamulka cisbitaalka caalamiga ee European Hospital ee magaalada Burco ayaa shaaciyay dhakhaatiir caalami ah oo u dhashay wadanka Ukraine isla markaasna ku takhasusay cudurrada ku dhaca dhagaha, sanka iyo cunaha ee loo yaqaano ENT. dhakhaatiirtan ayay ka warameen mas'uuliyiinta cisbitaalkani takhasuskooda iyo khibradda shaqo ay leeyihiin, iyagoo bulshada togdheer u ilaamiyay inay maalinta Isniinta ee 12 bishan ay keenayaan cisbitaalkooda. waxay iman insha Allah laba dhakhtar midna wuxuu ku soo takhasusay ENT leeyahay Dr. Yuria waa oday weyn oo ilaa experience leh malaa 20 sano ayuu experience leeyahay. waa Ukrainian dhakhtarkaas gabar kalena Ukrainiyad iyadana oo ku soo takhasustay gynecology oo tahay haweenka. insha Allah way imanayaan haddii la ka dhigo 12 bisha maalinta Isniinta haddii la ka dhigo ay imanayaan gobolka Togdheer Burco haddii la ka dhigo European Clinic Hospital insha Allah ay imanayaan. dhakhaatiirtan ayaa adeegyo caafimaad oo hore ka soo fuliyay wadamo dhowr iyagoo toddobaadyadii ugu dambeeyay ka shaqeynayay cisbitaalka IMS ee magaalada Hargeysa, iyadoo ay dhakhtarka European Hospital ee magaalada Burco hore u joogeen dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada neerfaha. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.